اللي The Crooked Rib فهذا قلوعا نور الدين فارح a great Somali writer وقري about 15 years ago أنا صدق ولينا أنا هيستو كلمة ده وجود ما يسمى حوالي when I was very young يعني سكول كشري ركا استعمار كإثيوبيا بوق اللي له روميو and Juliet أيان عادوا شعلا أنت ويا وبالله التوفيق والسلام. بسم الله مقعي وحلي هذا عبد الرحمن محمد أبسدون وحن كميد أحيدك كصومالي ذا أيه قرب جوكتا دوري تمك سنة قربان جوجي وحن كمان كميد أحيدك ولا ليه سيدي عروت الصومالي اللي بدها كنا واحد لهاين أفك الصومالية أما يقر لهاين أما يوخر لهاين با لو أنا هم حنسو صار بوجان اللي هذا في الصومالي وبوج كواد وبوج كعاونة يعروت الصومالية سيدي أواخر لهاين أفك الصومالية أيو برن لهاين waxaan soo wadnaa dhawaan haduu ilaahay yiraahdo buuga labaad iyo buuga saddexaad ilaa buuga afraad ee dugsiyada hoosan rabnaa inaan gaarsiino haduu ilaahay yiraahdo waa buug kalar ah waa buug aad u soo jeedanaya caruurta Soomaaliyeed buug wuxuu qaybsamaa saddex qaybood qayb ah farbarashada qayb ah laylis iyo qaybta ugu dambayso oo ah akhris heeso waxa kamid ah qolab calankeed waxaa kamid ah dugsigaaga ka adkow waxaa kamid ah arday baan ahay si ahaa waxaan rajaynayaa xil weyn inaan iska saarno sida caruurta Soomaaliyeed aan ugu dhiirigelin lahayn inay ku hadlaan afkooda hooyo maxaa yeelay jiilka soo koraya waa mustaqbalkeena af Soomaaliga mustaqbalkiisana waa jiilka soo koraya taas aan culays ka saarno waa mahadsantihiin xafladda runtii aad iyo aad bay u wanaagsaneyd oo waxay ugu wanaagsaneyd oo ugu muhiimsan weeyaan waxaa lagu soo dhaweynayay Dr. Safaadbo Axmed Caalin oo ahayd qof anigu aad u qaalin runtii la xamar iyo buugeeda qabtay teen out kuna runtii iska wanaagsanaa dad badan hore soo arkay runtii anigu buuga ma qorin waxaan kamid ahay un dad 15 dumar oo buuga wax ka qoray chapterka ugu horeeyay anigu leeyahay oo ka sheekeynaya runtii haweenka Soomaalida ee guuraagu iyo kaalinta dhaqaalaha kaga jiraan صح. بوجا ما كان شنو يتمون قفا ما كان ولا عريان ما كان شنو يتمون كان هواء عريان بوجا حاجة كل نوري. runtii waxay ku kala nool yihiin geesaha adduunyada waxay ku kala nool yihiin wadankii Soomaaliya Somaliland oo loo baydhabo iyo Muqdisho iyo halkan la dhintay joogno Canada Yemen marka runtii haweenka aqoonyahanka oo waliba u shaqeynayay ururada samafalka marka dadkan u shaqeynay intaas marka inta laga buugin ku qaatay marka buug wuxuu lagu qaatay muddo 10 sano runtii ah 10 sano waayo buug markii horeysay fikirkiisu wuxuu lagu bilaabay 1990 geesaha haweenka geesaha ku kala halkan u balay isku soo ururinayay mar walba marka aad ka kala diro marka waxaa runtii la daabacay aakhirkii 2004 ugu dambeyntii waxaan ku weydiin lahaa buugaaga bal la tusqaadkiisu yahay xagga u rogtay runtii buugga qaabkiisu waxa weeyaan wuxuu ka koobay laba qaybood oo waaweyn qayb waxay ka sheekeynaysaa wadanka waxay ka sheekeynaysaa dumarka Soomaaliyeed iyo waarinimadoodii dhaqankii hore dhaqankeedii iyo dagaalka qaybta labaad waxay ka sheekeynaysaa dumarkii sida dagaalka uga jawaabeen ma hada ay waxaan leeyahay in response of war صح واضح marka runtii kaas waa personal testimony iyo research ku koobay research waa runtii badan waa sagalaad ka research ah iyo todoba buugga hadii la doonayo xagee laga helaya marka buugga waxa laga helaya hadii la doonayo hay'adda la yiraahdo CIR Progressio hadaad gasho runtii internetkooda straight away baad keenaysaa waxaana la yiraahdaa waxaana weeyaan Progressio www.progressio oo gressio.org.uk ما سنت عمرو aniga waxa la yiraahdaa magacayga Faysal aw Cabdi Cambalaash waxaan deganahay wadankan Ingiriiska magaalada London galbeedkeeda waxaanan ahay nin kulay ma oran kara dhalinyaro laakiin ku cusub ama raad qaad ku ah qoraalka iyo
suugaanta labadaba waxaan jecelahay dhawaanna soo saaro buuggayga ugu horreeyey oo magaciisa la yidhaahdo tabaalo jacayl iyo tahriib halka aan xagga suugaantana waxoogaa isweerageygeeyo marka hore waxaan jeclaa akhriska haddii aanad akhriska jeclayna way adag tahay inaad qoraan noqoto waayo waxaad la kulmaysaa markaad wax akhriya tahay buugaag fara badan baad akhriyaysaa waxaa suurtagala inaad damac ku galo inaad qawado buug uu qof kale qoray oo aad tiraa kan malaa anigaa dhaami lahaa waxaa suurtagala inaad jeclaato maxaan buuggaas oo kale u qori waayey waxaa suuragala inaad tidhaahdo يعني sheeko aad aragtay oo ku fiican in la qoro oo ka soo horbaxday in ay marka ay sheekadaas ugu kalifto in aan cid u dhiibin adigu baad raad ugu meel buuka qortid haddaba aniga saas oo kale asxaab fara badan baan leeyahay oo qoraaya oo kamid yahay qoraaga weyne mutacalliq maxaa la aqoonyahanka weyne jaamac muuse jaamac waa barasare oo degan waddanka Talyaaniga qorayna buugaag fara badan oo ilaa 6 oo ay kamid tahay buugii ka qoray taariikhdii 82 ka dhacday Hargeysa dhagatuurka ee uu bixiyay note of my teachers group buugaas oo ku qoran af Ingiriisi runtii waan akhriyay buugaas markii aan buuga akhriyay mar labaad waxaan akhriyay buug uu qoray nin la yiraahdo Ibrahim Yusuf Ahmed oo degan isaguna Sweden labada buug markii aan akhriyay ayaan labadaba waxaan ka qoray faalladii aan qoray ayay dabadasana iyagii qoraayada ahaa jeclaadeen inaan aniguna qoraaba noqon karo faallada darteed dabadeetna way ila soo xidhiidheen waxay dhahdeen Faysalow qoraalka aad qortay dartii waxaan kugu boorinaynaa inaad adiga laftaada wax qorto aniga oo markaa haystaba mawduucii koowaad ee aan ka qori lahaa sheekada anigoo haysta halkaas aan ka bilaabay sheekada tabaalo jacayl iyo tahriib waana dhammaystiran tahay waxaan soo bixi doonaa buuggaas bisha Abriil ee sanadkan ee jirta insha Allah qoraaga Soomaalida ee imka raadqaadka ah ama qoraaga ruucadaadiga ah labadaba hadaan isku daro horta tirayeen marka hore bulshada Soomaalidu inta ay leegtahay iyo qoraalada Soomaalidu haysatay inta ay leeyihiin isma qalmaan isma dhigmaan aad bay tirayeen waxaan aad u jecelahay qoraaga cusub inaan ku booriyo inay halka ka sii wadaan dadaalka ay wadaan kelmad baan ka daba tagayay oo aan ugu celin lahaa mar labaad inaan raahdo horena aan ugu yeedho tayada iyo faa'iidada uu yeelanayo qoraalka uu qof sameeynaya ha yeesho wax ku talagal leh oo halka uu buugga maanta aan iibsaday berrito uu noqonayo mid kala go'ay oo la tuuray waxa ka wanaagsan inuu kunkii buugga malaayacniga ahaa ee sida tayada daraan lahaa inuu 200 oo qura daabaco ay 200 noqdaan wax tayo leh taas waa midna nuxurka buuggu sido iyo fariinta uu buuggu sido inay noqoto wax qiimo sameynaya oo lagu soo dhiiran karo oo markaan arko qoraalkii maanta aan qoray intaas qof baa iibsanaysa 500 buug hadaan soo saaro 500 buug 500 qof baa iibsanaysa 500 qof waa inay jeclaadaan ay weydiiyaan buug kale miyaan qoraynin laakiin hadday yiraahdaan ma kiiba qoray naga daa buugayga labaad wuxuu noqonayaa markaa qiimo daro af Soomaaliga iyo dhismaha af Soomaaliga iyo isku xidhka iyo maxaa la yiraahdaa abiyana iyo tilmaamiyo gudbiya aade iyo jooje isku dara xiriiriye falkaab erayadaas marka aan ka hadlayo waxa weeyaan dhismaha af Soomaaliga iyo isku xidhka af Soomaaliga iyo higaadi af Soomaaliga in la ilaaliyo si aanu macnaha eraygu isu bedelin oo haddii aan eray soo qaato